anigoo ah gudoomiyaha guddiga taakulaynta arrimaha abaaraha ee gobolka Sool waxaan halkan ka sheegayaa in markii ay taariikhdu ahayd 7 bisha Maarso 2007 ay naga soo gaadhay jaaliyadda South Africa gaar ahaan majliska Albayaan lacag gurmad abaara ah oo tiradoodu ay gaarayso $3,000 lacagtaasi wayna soo gaadhay hadda ka horna saxaafadda guud waan ku sheegnay in lacagtaasi soo gaadhay laakiin si gaar ah waxaan ugu soo duubayaa walaalaha inay warkaas la socdaan lacagtaas sida u baxdayna waa sida soo socota waxaan ku bixinay lacagtaasi raashin kala duwan aaga boocame tuulooyin iyo kaamam ku dhow waxaa loo qaybiyay 40 qoys baa raashin lagu qaybiyay raashinkaas oo isugu jira bur sonkor saliid bariis waxaa ku baxday lacag gaaraysa 1728 aaga dabataag iyadana sidoo kale sonkor raashin aan hore u geynay meeshaas sonkor aan ku kabnay oo 50 qoys ah ayaan lacagtaas ku iibinay oo qoyskiiba uu helayo shub sonkora loogu talagalay waxaana ku baxay 50 kaas qoys sonkortoodii waxa ku baxay lacag gaaraysa 1272 suuqeen lacagtaasi wixii kharajaad anaga ku kabnay laakiin lacagtaas totalkeedii suuqeen waxay noqonaysaa marka $3,000 sidaas lacagtaasna u qaybinay waxaana walaalaha soo bixiyay aan uga mahadcelinaa dadaalkooda anagoo la ilaahay meesha ka keentay wax ka badan oo ka wanaagsan idinku bedelo waxaanu leenahay baahidii iyo abaarihi waa si kululaadeen ilaahay raxmadiisa oo sugaynaa waxaan idka codsanaynaa dadaalkii iyo waxqabadkii iyo hawshaas inaad aad iyo aad u laba laabtaan baahida waxaan noogu wacnaa in badan waxaan weynay cid telefoonkii maaragtay aanu kala hadalno telefoonka Cabdirasaaq waan haynana horaan u weynay taasaa baahida noogu wacnayd mar horaan soo diran lahayn warbixinta waana mahadsantii